ayada oo wiilasha ay meesha fadhiyaan oo rafaadsan yihiin oo reerkooda meel ay u maraan ay laayihiin diyaarad lagu celin ilaahay dhul la marana la laayahay ayaa xasan sheekh maxamuud doorashiisa ay miiska soo saarmaysaa markay miiska soo fuusho xasan sheekh maxamuud asaga baryo tamay axmedow soo celi inta aan wax ku dhisayna waxa weeyaan waxyaabo hore u soo dhacay iyo waxyaabo hadda noo muuqdo ayadoo meesha ka baxay yani waxyaabo meesha ka dareenka qofka caadifada ay meesha ka maqan tahay haddaba waxbaa la dilay iyo xiniyi axmed madow meesha geeyay bay ahaayeen waraale ninka axmed madow geeyay muxuu u fuuliyay meesha been lagu shaqeystaa ma ogta ninka kursiga fiican ku fadhiisan kara ninka kuma fadhiisiyo aabaha ma ku fadhiisinaysa darajo tahay adiga ku fadhiisanaya dhib male waa ku soconaya waxay ku qanacsan yihiin horta nimo siyaasadda waxaa la yiraahdaa waxa la politicska oo practice of political wayaan wax la yiraahdo qofku inuu waxyaabaha siyaasadaha la xiriiro oo ficil ahaan loo fuliyo wayaan waa practice of political activities meesha anaga waxaan ka sheekeynayna iyo meesha aan ka fikirayna iyo groupka axmed madow markaan iyo waxaad ka sheekeynaysaan aad bay kala fog yihiin annaga waxaan ka fikiraynaa dynamiga Soomaalida siyaasadeeda ay u taalo iyo mustaqbalka dhow iyo ka fogba sida xoog yani awoodda loo kala riixanayo yaa awood badnaan doono maxay ku dambeyn doontaa kuraasta ugu sarreysa yaa qaadan doona yaa wadanka madaxweyne ka noqon doona hebel muxuu noqon doonaa hebel yaa meesha waxaan ka fikiraynaa annaga waxaan ka fikiraynaa groupka axmed madow hadaan nahay taageersan ama sida axmed uu fikirayo in xasan uusan madaxweyne noqonin kow mar labaad oo beenbeen uusan kusoo laqonin inaan kismaayo erga beenbeena oo nin macmila oo tacbaana oo xasan meesha keensaday inuusan erga 3,000 intuu ku soo ururiyo xasan ugu shubin waatan ka duulayna waxa kale oo anaga marka hortagayna la dagaalamayno waxyaabahaas ka mid ah idinkan waxaad ka fikiraysaan rag shal markuu axmed meesha tagayaan han siyaasadeed lahayn qaarkood iska yaryaraayeen qaarkood han siyaasad meen lahayn jubbooyinkay ku noolaayeen meen xataa ku fikiraynin inay wax yaataa 12 nin oo askari inta meel suu kaysaan in xataa isbaar dhigtaan meen ku fikirin rag waa isbaar dhigtaan oo siyaasad isbaar ka soo bilaabo muuse suudi isbaar ka soo bilaabay haddana waa nin aan taaban karin xamar qayb baa u xidhan ma xataa ma ayna ku fikirin hankooda muusan gaarsiinin inay jubbooyinka wax ka noqdaan wax hogaamiyaan siyaasadan axmed markuu meesha tagayay 3 nin ama 4 nin ayaa share lahayd ama contribution ka geysatay nin waa ninkii meeshan aas uu dhintay Allah naxariista waxa la yiraahdaa magacan soo bilaabay azani ee ciidamadii ugu horeysay tababarday uu dhintay waa gaandi Allah naxariista ninkii labaadna wuxuu ahaa political shareholder ka lahaa axmed madow waa maxamed Allah naxariista uu dhintay seeraarna waa joogaa dadkan marka hadda ordayo dhammaantood way haddaan kooyay weeyaan ma idin la tahay marka dadka noocaas dhammaantood waa qof uu axmed ama kursi siiyey ama darajo siiyey ama sargaal ka dhigay ama wax uu si qof iskii intuu lugaha ugu istaagay oo kor u istaagay oo kor fiiriyay waxbaan noqonaya waxbaan hay kuma jiro dadkan sidoo waxa lagu qiimeeyaa xagee nolosha ka soo bilaabay muxuu qabtay xagee isgaarsiiyay muxuu sameeyay dadka marka aad nooga rabtaan in leedin waxbay qabanayaan madaxweyne noqonayaan ma awoodaan haddii xataa axmed uu ka tago ma umaleynayaan madaxweyne noqonayaan waa iska farfariisanayaan yaa u dhiibnaa bay leeyihiin marka dambana qof kale ka dhex qaadanaya hadday doonaan u malayn maayo dad hankaas leenu jiro nin kasta oo hadda marka arrinkan groupkan horboodayo waa nin xanaaqsan oo ama in dalacsin loo diiday nin xanaaqsan oo contract u lahaa loo diiday nin xanaaqsan oo kursi xildhibaan turaasay loo diiday nin xanaaqsan oo wax kale loo diiday weeyaan dhammaantood Ilyas bedelaga boose axmed madow ilmaadeerishin daraad buksmaayo banaankeeda ka cararay intuu Cabdullaahi soo diro ciidan soo siiyay 20 sano laga soo wareegay hadda ya Allah kursiga xasan dheere loo xoogay oo laba noo reexirsi asiga xamza la geeyay markuu miirsaday oo mishaar u qaato soo kala firay dadkan markaad ka sheekeynaysaan ee axmed madoobe wax ku haysta ama rabay wax baan ku qabsanayna wadada noocaas mana awoodo xataa inta horta way ka dhacday kufi way ka dhacday hayo marka waa soo kufinay raalaad marka waxa idin sheegaya ciidanka gadeed ku rafanaysaan ciidanka gada ayagaan weeraray meeshoodan ugu tagnay waa weeraray markale dagaalan ciidan ma guuleysatay ma ayagana soo weerarinba ayagii meesha lagu uriyaan meeshooda ugu tagnay aad waxaan u maleynayaa waxa idin ka farxiyay waxa la yiri fooran dhartay fadhi socod bartay waa fookanayaan soddonka wiil ee ka raska mooritaga aad iyo cajabiyaan maleynayaa marka waad faraxsantiin ragii daraad lahaa axmed oo dhagta dhiiga loo darayaa waa la soo qabanayaa waa la soo xidhayaa waxan baa la sameynayaa wixii ragii baa hadda waxay ku faraxsan yihiin soddon wiil oo intay kismaayo ka carareen marka hore axmed madoobe ka cararay oo federaalka aaday oo la noolaan waaye oo hadda intay naf soo bideen raskamboni la keenay oo meel yar oo boor lagu soo daayay moodaan inaad rajo ka dhiganaysaan waxaad ogaataan ninka la yiraahdo maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yaraan dhowr kun askari uu gadageeyay axmed madoobe gada muuse maamuleynin uu yaraan intii Jubbaland jirtay gada maan muuse ka ramineen ciidamadii gada la geeyay iyo saanadii gada la geeyay ee awoodda aragtay la kayd ee dhaqaalaha aragtay ku baxay oo in lacag hurayo oo maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu daba socday iyo Fahad Yaasiin ayaa waxba qaban waayay meel aadi waayay waxa marka aad idin la weyn idinka oo wax buur idin la ah diyaarad konton qof qaada 3 diyaaradood raskamboni meel boor lagu daadiyo haduu bir roob aan soo deegi karinba meel ay marayaan aan lahayn raskamboni meeshan la awoodin inay xoreeyaan iyo meel kala toona
ayaa waxay idin la tahay wax weyn horeyna waa idinku sheegadan waa idin sheegayaa inuu Axmed Madow is dooranayo waa idin sheegnay idinka saad rabtaan inuu isku caano shubay in loo imanayo ilaa inay xasan iskhilaafi doonaan inay madaxweynayaal kale isku dhawaa yani isku is dooran doonaan oo inay madaxweynayaal sheegan doonaan dabeetana inay isku soo urur doonto in Axmed Madow la wada yimaado oo dhamaanta nin walba uu yiraahdo Axmed Madow igaaga dhawe tiina way iman doontaa marka waxaad samaysaan sida kaliya Axmed siyaasaddiisa ee ku wiiqmi karto waa in ama Kismaaciil laga qabto ama Bu'aale la qabto laakiin Raas Kamboni oo go'doona oo marka hore meel loo maran lahaa mid kale doomahani waxaad sheegaysaan dooma Axmed ciidamadiisa mar hore ay lahaayeen ciidamada badda Jubbaland oo almiita sameynayay oo hore weeyaan fiidiyoodan lii soo galiyay wiilashan meesha joogay wiilal meesha sii joogay weeyaan oo ciidankii qaybtii Axmed ahaa waxan markaa isdhax yaacinaysaan ee nafta ku sasabaysaan waxba kama jiraan maadeer waxaad samaysaan halku xisaabtama Kismaaciil ku soo duula qabsada ama airportkeeda qabsada ama magaalada qabsada waa raganimo groupkiina mucaaradka ee xaq kale ka socda ama Bu'aale intaad xaq ka soo gashaan dawlad yani Axmed tiisa garab socota ku dhisa laakiin inta ka horeysa wixii oo dhan dabagaale waqtiga wuxuu ku dhamaanayaa oo doorashadii Xasan Sheekh Maxamed lagu gaaraya iyadoo wiilasha ay meesha joogaan oo gaari lagu qaadan lahaa gaari xataa ma gaari xataa ma haystaan technical say wax loo xoreeyay xagee la maraa miyaa la duulaa ma drone